balse nasiib darro lugta ayaa laga qabsanayaa. Aad ayay u qaylinaysaa, albaabkiina keligii ayaa sixiraya. Griffin maadaama mugdi badan uu jiray, wuxuu soo qaadanayaa toosha. Wuxuu arkayaa boombalihii oo dhulka jiifa. Kadib waxa uu eegayaa gadaashiisa. Wuxuu arkayaa boombalihii oo gadaashiisa maray. Taana cabsi ku abuuraysa. Markii wuxuu kusoo booday boombalihii, wuu iska caawinayaa. Gadaal ayuuna u tuurayaa. Wuu soo cararayaa Griffin. Wuxuu soo galay qolka walaashii yareed. Wuxuu u sheegay inaysan banaan kusoo bixin. Wuxuu isku dayay inuu caawiyo Kanra. Dhankaada ayuu soo aadayaa, balse wuu istaagayaa mana garanayo cidda haysa. Nasiib wanaag, Kanra waxay awood u yeelanaysaa inay baxsato, balse guriga ayaa ku xirmaya. Griffin oo iska taagan waxaa qaadanaya wax sida geedka oo kale ah, waxayna ku tuurayaan banaanka. Madison waxay arkaysaa albaabkii oo iska furmaya keligii, banaankana uu yahay mugdi gudcur ah, balse leer indhaheeda soo jiitay ayay arkaysaa boombale iska wareeganaya. Waa iska daba raacaysaa, balse leerka ayaa laga diminayaa, mugdi ayay kusoo haraysaa. Dib ayay fiirinaysaa, waxay arkaysaa guriga ka fogaaday. Waxay isku daysan